بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برنامج كان waxaan u bixinay yowm siirati nabawiya waa barnaamij gabdhaheena qiimaha badan ee dhameeyeen 3 kitaab oo siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ku soo bandhigayaan mawaaqif ku saabsan siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam saasoo kale ay ku soo bandhigayaan xifdigoodii. barnaamijkan waxaa loo sameeyay gabdho ka tirsan maraakista ummahatil mu'miniin kuwa online ka ku qaatay iyo kuwa xuduuri ku qaatayba. ardayda qaar waxay qaateen kitaabka al-urjuzatul mi'iyya fi dhikri hali ashraf al-bariyya. ardayda qaar waxay dhameeyeen kitaabka rawdatul anwar fi siirati an-nabiy al-mukhtar. ardayda qaarna waxay dhameeyeen kitaabka i'raf nabiyaka. waa 3 kitaab oo siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam ku saabsiisan ayay dhameeyeen. xalfadan yarta marka waxaan u sameeynay bandhig gabdhaha siirada nabiga bartay bal inay ka sheekayaan mawaaqifta siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka saameysay. saawad ogtii nabigeena sallallahu alayhi wasallam barashadiisa iyo raacidiisa iyo adeecidiisa waajib ay noogu tahay. barnaamijka marka waa bandhig sidaas oo kale barnaamijka waxaan rabnaa gabdhaha kale inay ku daydaan oo nabiga siiradiisa bartaan alayhi salaatu wasalaam. waxaa ku jira gabdho xifdiyeen 100 bayt oo ku saabsiisan nabiga noloshiisa laga bilaabo dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa oo aan daahir qalbi ka xifdiyeen. waxaa ku jira gabdho xifdi yani aad u soo fahmeen kitaabka rawdaha ku jira. hadafkeena ugu weyn marka waxa waaye ikhwaati ilaahay idin barakeeyo gabdhaha muslimaadka inay u noqono qudwo. gabar kasta inay ka korto in jirkeeda ama muuqeeda ay dadku u soo bandhigtaan ama ay ku soo jiidato. laakiin gabar kasta aqoonteeda iyo diinkeeda iyo waxbarashadeeda lagu tartamo oo la soo bandhigo kaasaa qofka fi dunya wal aakhirah oo ku meel gaara. nabigeena sallallahu alayhi wasallam jaceelkiisana waxaa ka dhalanaa inaan barano maadaama aan dhahnay nabiga waan jecelnahay siiradiisana ma naqaan isma keenayso. marka mawaaqifta gabdheena noo soo bandhigi doonaan ilaahay idin barakeeyo. gabdhahan marka waa gabdho qiimo leh waay siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam ay xifdiyeen. nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa maalmaha kamid iska ooyay aad buu ooyay alayhi salaatu wasalaam. saxaabada waxay dhahay rasuulullah maxaa ka oohinay? nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam ishtaqtu li ikhwani buu yiri walaalahay ayaan u xiisay. asxaabtu waxay dhahay yaa rasuulallah awlasna ikhwaanuk anaga walaalaha ma nihin miya? nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam bal antum asxaabi idinka asxaabteeda tihiin walaalahayga ma tihiin. walaalahayga waxaa waay kuwo gadaashay imaan doona waxaa gaari doona warkayga oo waraaqo ku qoran markaasay rumayn doonaan ayagoona nabiga arkin ayagoona ni arkin ayay rumayn doonaan warkayga oo qorana gaari doona kuwaas waa yiri. marka nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu la ooyay ishtiyaaqan li ikhwaani oo gadaashiisa imaan doona. anaga marka soo xaq nooguma leh oo waajib nooguma leh siiradiisa inaan barano inaan faafino inaan raacno inaan ku dayano xidiga aan fiirsanayno inaan say ka dhigano xaqoo noogu leeyahay. marka barnaamijka gabdhaha soo jeedin doona ani waxaan rabaa inaan u bilaabo oo aan ku soo noqonin 2 mowqif oo inta kitaabtaas aqrinay aad iyo aad saameyn ay u yeeshay. موقف وهجرتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف. موقف كان مركز تو كتاب سيرة سومراي ما كجود بيه حقيقة هذا سامين يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم مركز أذيركي ودنت وحاسكي سي أدمت ومجالدي وكعد لوبي وابح النبي صلى الله عليه وسلم غير ضعيف وتجي مركز يريا أهل الطائف ولي بملاحظة ذي أيو هذه ملاحظة ذي مركو هذا وقعد صدي ما دام قريش أديد إنه أسوي سودوية لكن ويديدين طبعا مالين ayuu nabigu reer daa'if ku dhex jiray oo dacwo iyo diinka dhaxwada laakiin way ka diideen. maxay iskantay xataa in nabiga sallallahu alayhi wasallam ilmahooda iyo islaamahooda ay ku soo diraan oo soo dhagaxyeeyaan. nabiga sallallahu alayhi wasallam waa soo tuuriyeeyay. Aisha nabiga weydiinay yaa rasuulallah Uhud maalinkaaga dhib badan ma ku soo martay? maalinkaas ay iga sii dhib badnay buu yiri oo Taif ay iga sii dhib badnayd oo nabiga alayhi salaam ilaa dhiiga lugihiisa uu gaaray. زيد بن حارثة الله سعودي رجح النبي لو صار توربة أساس كوديجان نبي حليه وصار سعودي وأنا مهموم أرى استعمال فيه نبي أدياد أي أمور جسنا أدياد أي أول والبنا حتى إله سبحانه وتعالى أيوبر النبي صلى الله عليه وسلم واتي دعاء ما ركت عنك وأقرنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أشكو إليك ضعف حيلتي وضعف قوتي
وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا ربي أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن علي بك غضب فلا أبالي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عداس أو النبي عليه الصلاة والسلام أو أقري أمرك بدد أيو أقري. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. إنه إلهي وحن كان منقل أن يحل علي غضبك، أو أما إنه سخط كاد أو يقصد دجا إلهي وكان منقل واتو النبي الله عليه الصلاة والسلام. مركز دعاء النبي محاكا كان مروجا كان وأول سنة وحير سائس كجسوا السعودية النبي صلى الله عليه وسلم قرن ثعالي وماذا لما ملك أو ماذا ملك الجبريل يحير يا رسول الله محمد إلهي وأرك قوم كاد وحي كوجو جوابين ملك بورها نواكنا أمر لبضن بورود ما أنت اسكو جنبي مركز ملك بورها إماد مركز يقول إلهي بيصاد دري هذا دور يسيد قوم كان لبضن بورود إنا كسو جنبي وكسو جنبينا يا أمر فير نبي وكليس زيد بن حارث بس على صعد ومرجسيه dhiiggiisa soo daadiyeen way soo tuuriyeen waa aragti waa soo diideen quraysh waatay hore u diido magaalada Maka waatuu ka cararay meel u ciirsado male Alayhi salaatu wasalaam. haddana meel uu ka fikiraa fiiri wuxuu yiri maya ilaahay baa waxaan ka rajaynayaa dhabarkooda inuu ilaahay ka soo saaro kuwa ilaahay caabudo oo ilaahay u shariig yeeleen iimaankaas fiiri way dileen kuwaan inta waa leega diideen dhamay waa dhigi kariya Alayhi salaatu wasalaam. wuxuu ka fikirayaa waxay sii dhali doonaa waa waxaan wali dhalanin waad waxay sii dhali doonaan uu ka fikira Alayhi salaatu wasalaam. taa marka mowqifkaas aad u saameeyaa عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات دب بدن أيو صامر الدين كمان أنت إسكاجو فدينه ونسوي جار دب بدن وكصامر قضب وقضب كاس قضب كلو حواي تلمان وحاجرتو ياد ومعان وإسلام معبد ليرة نبي يكون تلمان عليه الصلاة والسلام. نبي مركو هجرونا يا لسعودي عبد الله بن وريقد إسلام تاني قولي هذا كسر دجين مرت وحلا عبو يعانا ما هي سواي مركز يتري يا رسول الله aniga waxay tiri sanad abaara lagu jira xoolahaana waa guray wax caana male nabigu rimeelta joogta ayuu yiri ridaas maxaa waay ridaas waxay tiri arigi kale waaba raaci weyso daal iyo baahi ay eri kale raaci weysi nabiga ridi kale u soo qabatay markaas nabiga Alayhi salaam gacantiisii barakeysneed oo sharafta lahayd ayuu nabiga Alayhi salaatu wasalaam ku masaxay candadeedii ku masaxay kadibna caano tiro badan ayaa ka imaaday markaas ay darartay caano weel ayaa loo dhigay nabigu waa ku lisay haddana uu cabay nabigu ayadii buu siiyay asxaabtiisii buu siiyay waa laga dhargay markuu nabiga ka tagay macbad ninkeeda u imaado markaas yiri yaa macbad ninka ku soo maray ii tilmaan si fiihi liya macbad macbad ii tilmaanta ee siisay qofka luqada carabiga fahma oo ku raaxaysana xaqiiqada nabiga inta isku qabato asuuraysan nabiga Alayhi salaatu wasalaam quruxdiisa iyo jamaalkiisa waxay tiri waxaan arkay way tiri ra'aytuhu ظاهر الوضاء بيتر أبلج الوجه حسن الخلق نبي waxaan arkay way tiri aad u iftiimay oo wajigiisu ay qurxan tahay oo abuurkiisu uu qurxan yahay lam tu'ibhu thijla wa lam tuzri bihi su'la qasim wasim badal calool weyn ma leh madax gaaban ma leh nabigu waa qurxsan yahay Alayhi salaatu wasalaam fi aynayhi da'aj wa fi ashfarihi wadaf wa fi sawtihi sahal indhihiisa qaybta madow fiicana ku jiray tiro oo uul ah نبي عليه الصلاة والسلام عدكيس حبيبه كجرتي داد وفي عنقه صدع أحور أكحل أقرن أزج شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاوتر هدو أعمسو نبي وينيسي يهيبيسي أضبوليس سيدوا كيبيسنس هدو أعمسيه هدو هلنا النبي صلى الله عليه وسلم قروح الدبوليس أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجلاه من قريب حلو المنطق بيتري نبي عليه الصلاة والسلام دواقي سوا معايا هذا الكيس هو فصل متكل بحصن واي لا نزر ولا هذر من هذا يرى وملدها يقف كان محل كرمية هذا الأوترك أوتربضن ملي عليه الصلاة والسلام كأن منطقه خرزات نظم يتحدر نبي وحوم ليس بيتري هذا الكيس يعني كولا الله تحي أو صوت هذا أم ليس صوت اسكو حق عليه الصلاة والسلام ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا قيبتنا مركا كسيت المانت له رفقاء يحفون به بتر
wuxuu leeyahay bay tiri asxaab oo nabiga ku wareegsan idaa qaala istamicuu liqowlih hadduu nabiga hadal dhaho waa kala haadayaan hadalkiisa dhagaha u taagayaan wa idaa amara tabaadaruu ilaa amrih hadduu amar bixiyana amarkiisaa loo kala ordaa bay tiri waxay tiri maxfuudun maxshuud laa caabisun walaa mufnid weliba erayada ani hadda waqtigaa nugu yara waa soo kokoobayae tilmaantii ugu micid ayay Umu Macbad siisay weliba reer Maka waxay ka maqleen markii Umu Macbad ninkii wuxuu yidhi ninkaas ayay tilmaamayso waa ninkay Quraysh raadinaysay buu yidhi haddaan jid u helana ninkaa waa aadi doonaa gabadhaas tilmaantaa marka waa axlaa sifa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la siiyo waay ilaa marka dambe reer Quraysheed magaalada Maka waxay maqleenaa la yidhi cod qof qaadaayo ma la yaqaano gabay waaye qof qaadaayana lama yaqaano gabayga wuxuu leeyahay jaza allaahu raba alcarshi khayra jazaa'ihi rafiiqayni xallaa khaymati ummi macbadin هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازي وسؤدد ليهن بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سألوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي ماشي وحي كده عدو سوكوبيا وحولي قبدين ولاشي ويدية arigi weydiiya arigi iyo weelkii caanaha ee u dhigata weydiiya iyo taariikhdii kala qabsatay marka xabiibaat ilaahay idin barakeeyo labada mowqif oo kaliya aan ku soo koobaa laakiin nabiga siiradiisa waa laga hadlaa hadii la dhaho maalin oo dhan ayaa laga hadlaa marka barnaamijkan waa cardu siira waa yawmu siira nabigeena aan ka sheekaysanin wax waqtigeena kamida waxaan siinay nabigeena calayhi salaam inaan ka sheekaysano hadda waxaan ku wareejin marka gabdhaha mawaaqifta intay kitaabka dhiganayeen meelo waxaa jiro saameeyay oo calaameysteen ani uma doorin meelay soo doorteen xataa ma ogi laakiin waxaan rabaa qof walba markuu ka sheekeeyana qaybtaa saameysa xataa qalbigiisa inuu ka hadlo asagoo xataa wax oo meel ka aqrinaya aysan jirin siirada inta aqrisanaysay maxaa kaa saameeyey oo ku qabsaday inuu ka hadlo marka gabdhaha ku wareejin insha allah aada u mahadsantahay waa ku dheeray salaamu calaykum waraxmatullah